bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba daawadayaal kusoo dhawaada wararkeena qodobadaad ku maqli daawan doontaana waxaa ka mid a ergeygii midooda yurub usoo magacaabay etoobiya oo sheegay in tigreega loo burburiyey si aysan madaxa usoo qaadin 100 sano ee soo socota jabhadda OLF oo diyaarisay qorshe diyaaradaha rakaabka rayidka ee etoobiya ay ku weerari doonaan wargeysyada caalamka oo falanqeeyay doorashada toddobaadkan inagu soo aadan ka bilaabanaysa dalka etoobiya waxayna sheegeen in dalka Ethiopia uu kala qaybsami doono dhanka iyo Soomaaliya wararkan idinka haynana waxaa ka mid ah sababta uu dib ugu dhigay ra'iisul wasaare Roble inuu shaaciyo liiska gudiyada doorashooyinka oo xoga ka soo baxayaan midowga Yurub oo qaaday tallaabo ka dhan ah ciidamada Kenya ee jooga gudaha dalka Soomaaliya Goodlawe iyo Axmed Madoobe oo samaystay isbahaysi wax looga bedelayo heshiiskii doorashooyinka tirada gabdhaha Soomaalida ah ee lagu leeyahay magaalada Nairobi oo korodhay intaasi waa qodobadan hayna kuwa ugu doorka roon haatana kusoo dhawaada isagii oo faahfaahsan aan ku bilowno dhanka iyo Ethiopia ergeygii midowga Yurub oo soo magacaabay xaaladda Ethiopia ayaa sheegay in tigreega loo burburiyey si aysan madaxa u soo qaadin 100 sano ee soo aadan wasiirka arrimaha dibadda ee Finland ahna wakiilka midowga Yurub ay u soo magacaabeen xaaladda Ethiopia ka jirta iyo dagaalada ka socda gobolka tigreega ayaa baarlamaanka Yurub ka hor sheegay in madaxda dalka Ethiopia ay si cad ugu sheegeen in gabi ahaanba ay burburinayaan qowmiyadda tigreega si aynan 100 sano ee soo socota aysan madaxa kor ugu soo qaadin wasiirka arrimaha dibadda ee Finland ayaana arintani ku tilmaamay isirsifaynka dhana qowmiyadda wasiirka ayaa ku baaqay in arrimahani wax laga qabto si aysan xaaladdu u sii xumaanin Ethiopia-na fududeyso sidii wax looga qaban lahaa amuurtani dhanka kalena dowladda Ethiopia oo goor dhaweyta si adag uga jawaabtay hadalka ka soo yeeray wasiirkaasi arrimaha dibadda ee Finland ayaa waxay gaashaanka u daruurtay sheegashadaasi Ethiopia waxay ku tilmaantay hadalkii ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Finland mid been abuur ah oo aysan waxba ka jirin dowladda Ethiopia ayaa diiday warbixintii wasiirka arrimaha dibadda ee Finland Becka uu u gudbiyay baarlamaanka Yurub 15kii bishan oo la xiriiray booqashadiisii uu ku yimid dalka Ethiopia isagoo ah ergeyga gaarka ee midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Ethiopia eedeymaha wasiirka arrimaha dibadda ee Finland u jeediyay Ethiopia ayaa daliil cad u ah rabitaankiisa hoose ee ergeyga gaarka ee lagu doonayo in lagu waxyeeleeyo dowladda Ethiopia la iskuna dayayo in lagu farageliyo xudgudubna lagu geysto iyadoo la marayo been abuur iyo warbixin aan waxba ka jirin ayaa lagu yiri hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia dhanka kalena hadalka ka soo baxay Ethiopia ayaa lagu yiri waa arrin aad u xun in baarlamaanka Yurub laga hor sheego in Ethiopia oo ah dal madax bannaan ay rabto inay tirtirto tigreega si aysan 100 sano madaxa kor ugu soo qaadin waa been abuur cad oo muujinaya mas'uuliyad darro diblomaasiyad la'aan ayaa lagu yiri hadalka ay cadhada badani ka muuqatay ee ka soo baxay dowladda Ethiopia looguna jawaabayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Finland ahna ergeyga gaarka ah ee midowga Yurub soo dirsadeen arrimaha Ethiopia jabhadda OLF-na waxay diyaarisay qorshe ay diyaaradaha rakaabka ee dadka rayidku saaran yihiin gudaha dalka Ethiopia ku weerari karaan jabhadda OLF ee ka dagaalanta gobolka Oromadu ee dagaaladu ka aloosan yihiin ayaa la sheegay inay dejiyeen qorshe cusub oo ay ku doonayaan inay ku weeraraan diyaaradaha rakaabka ee gudaha dalka Ethiopia jabhadani ayaa maanta war ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay diyaaradaha Ethiopia loo isticmaalo in hubka lagu soo daabulo laguna soo geliyo gudaha dalka Ethiopia maamulka shirkadda duulimaadyada ee Ethiopia ayaa eedeymahaasi beeniyay iyagoo sheegay inaan wax huba lagu soo qaadin diyaaradahooda rakaabka tallaabadani maanta ay qaaday jabhadda ayaa lagu micneeyay mid ay ku doonayso inay ku banaysato weeraro ay ku bartilmaameedsanayso diyaaradaha rakaabka Ethiopia waana khatar cusub iyo jawi dagaal oo cusub dadka Soomaaliyeed oo aad u isticmaalay inay adeegsadaan diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaan uga digaynaa inay ku socdaalaan diyaaradahaasi maadaama jabhadani OLF ay awoodeedu aad u sii kobcayso aanay suuragal tahay inay weeraro la eegtaan diyaaradahaasi rakaabka ee dalka Ethiopia wargeysyada caalamkuna waxay falanqeeyeen doorashada Ethiopia ee toddobaadkan inagu soo aadan ka bilaabanaysa dalkaasi iyagoo sheegay in dalku uu kala qaybsami doono toddobaadkan inagu soo aadan waxaa guud ahaanba Ethiopia ka bilaabanaya doorashooyinkii guud ee dalkaasi oo lagu soo dooranayo baarlamaanka dalkaasi doorashadani oo xisbiyo badan oo mucaarad isaga hadheen ayaa waxaa la sheegay inay tahay mid walaac badan laga qabo marka la eego xaaladda Ethiopia oo goobo badan ay colaado ka taagan yihiin qaar ka mid ah warbaahinta oo falanqeeyay doorashooyinkani waxay ku sheegeen mid guud ahaanba dalka kala qaybin doonta wargeyska caalamiga ah ee The Economic oo doorashada dalka Ethiopia
Itoobiya wax ka qoray ayaa walaac ka muujiyay inay noqoto mid dadka kala qaybisa. Wargeyska oo daba socda hadalkii Abiy Ahmed ee ahaa in hooyadii u sheegtay inuu boqor noqon doono ayaa warbixintiisa ku sheegay in natiijada doorashada Itoobiya iska caddahay oo aysan shakiba ku jirin cidda ku guuleysanaysa isla markaasina ay noqonayso mid uu Abiy Ahmed boqornimo isugu caleema saaro. Heer galbeedka ayaan korjoogayaashoodii u soo dirin guud ahaanba doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan dalka Itoobiya, waxaana xusid mudan in xukuumadda Abiy Ahmed ay ku soo rogeen xayiraado kala duwan oo lagu ciqaabayay kadib markii dowladda lagu eedeeyay gaboodfalyo ka dhacay gobolkaasi Tigreega ee dagaaladu halakeeyeen. Dhanka Soomaaliya wararkan idinka haynana sababta uu dib ugu dhigay ra'iisul wasaare Roble inuu shaaciyo liiska gudiyada doorashooyinka ay xoog ka soo baxayaan. Waxa ilaa iyo haatan si rasmi ah loo shaacinin liiska gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, kuwaasi oo xubno ka mid ah gudiyadaasi laga keenay cabasho iyada oo qaarkoodna la bedelay. Ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegay in dhawaan la shaacin doono liiska gudiyadaasi, hase yeeshee si cad uma sheegin sababta ka dambaysa in ilaa iyo haatan aan si rasmi ah loo shaacinin. Xogta ay helayso warbaahintu ayaa sheegaya in sababta ugu weyn ee dib u dhaca u keenay liiska gudiyada doorashooyinka inuu shaaciyo ra'iisul wasaare Roble ay tahay guux iyo tabasho weli ka taagan guddiga doorashooyinka oo wax ka bedel haatan lagu sameeyay. Waxaa taagan qayladhaan iyo cabasho ay dhinacyada qaar ka qabaan gudiyada Somaliland, Galmudug iyo xubno ka mid ah gudiyada Hirshabelle oo qayb ay ka yihiin xubno ay saameysay eedeynta mucaaradka. Ra'iisul wasaare Roble ayaa isku dayay inuu ka hor inta uusan shaacinin liiska gudiyada doorashooyinka uu meesha ka saaro diidmo hor leh oo dhinacyada qaar ay kaga falceliyaan liiskaasi, maadaama uu uga sii dari karo xaaladda cakiran ee dalka. Waxaa gebi ahaanba xafiiska Roble loo gudbiyay xubnihii gudiyada doorashooyinka oo wax ka bedelka lagu sameeyay oo ahaa 34 xubnood, isla markaasina hadda waxaa harsan oo ay tahay kaliya in liiska guud ahaanba la shaaciyo xafiiska kadibna marka uu si buuxda loo xaliyo cabashooyin weli ka taagan. Midowga Yurubna waxa uu qaaday tallaabo ka dhan ah ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya, sida laga soo xigtay qaar ka tirsan warbaahinta dalka Kenya. Midowga Yurub ayaa dhimay lacagihii uu siin jiray ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka Midowga Afrika AMISOM, kaasi oo wax ka badan 10 sano ka socday gudaha Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa dhimay 66% oo ka mid ah lacagihii uu siin jiray ee howlgalka lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab ee awoodda ku leh gudaha Soomaaliya, waxayna gaaraysaa lacagta la dhimay in ka badan 45 milyan. Lacag dhimistani uu sameeyay Midowga Yurub ayaa dhaqan geli doonta sanad maaliyadeedka cusub ee ka bilaaban doonta bisha Luulyo ee sanadkani aynu ku jirno, maadaama ay soo dhamaatay waqtigii loogu talagalay in AMISOM ay guud ahaanba isaga baxdo Soomaaliya. Sida qorshuhu yahay, howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa la soo gabagabayn doonaa bisha December ee sanadkan, iyadoo amniga dalkana lagu wareejin lahaa ciidamada Soomaaliya. Inkastoo hadda aysan muuqanin ifafaalo muujinaya arrintaasi, waxaana qorshahan horay shaki u geliyay khuburo dhanka amniga. Ciidamada Kenya ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii 2011 waxay gudaha u galeen Soomaaliya si halkaasi ay ugala dagaalamaan xoogagga Shabaab oo ay sheegeen inay khatar ku hayeen amniga gudaha ee dalka Kenya. Ciidamada Kenya ee ka howlgala Soomaaliya ayaa inta badan fadhiisimahooda military ku leh deegaanada ay ka arrimiyaan maamul goboleedka Jubaland, waxaana dowladda Soomaaliya dhowr jeer ku eedeysay Kenya in ciidamadeeda ay faragelin qaawan ku hayaan madax banaanida dowladda Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa iyadu dhankeeda ku dhawaaqday isla waqtigaasi inay gudaha u geli doonto Kenya, waxayna kooxdani u suurta gashay inay weeraro khasaare geystay ka fuliyaan gudaha Kenya, iyagoo ku hanjabay in ay sii wadi doonaan inta ciidamada Kenya laga saarayo gudaha Soomaaliya. Madaxweyne Goodlawe iyo Axmed Madoobena waxaa la sheegay inay samaysteen isbahaysi cusub oo wax looga bedelayo heshiiska doorashooyinka. Xubno muhiim ah oo ka tirsan xafiisyada madaxweynayaasha Hirshabelle iyo Jubaland oo sidoo kalena xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Cali Cabdullaahi Xuseen Goodlawe ay wadaan dadaallo wax looga bedelayo heshiiskii doorashada. Sida aan ogaanay, labada madaxweyne goboleed ayaa wada qorshe ay xubnaha beesha caalamka uga dhaadhicinayaan in doorashada baarlamaanka lagu qabto min hal magaalo oo maamul goboleedkaasi ah. labada madaxweyne oo dantu isku qorshaha ka dhigtay ayaa shirka Kismaayo horgeyn doona ajandaha in la bedelo qorshaha doorashada ee min laba magaalo haddii aan sidaasi la samayn karinna duruufo gaar loo eego labada maamul, isla markaasina doorashada lagu qabto Jowhar iyo Kismaayo kaliya. Madaxweynayaasha Jubaland iyo Hirshabelle ayaan maamuladooda laga taageersanayn Hiiraan iyo Gedo, waxayna diidan beelaha qaar ee goboladaasi, iyadoo sidoo kalena ay goboladaasi ka jiraan awoodo ciidan oo ka soo horjeeda. Goodlawe iyo
Axmed Madoobe ayaa damacsan inay saameyn ku yeeshaan baarlamaanka ka iman doona magaalooyinka Garbaharey iyo Beledweyne waxaana muuqata in haddii lagu qabto aysan yeeli doonin awood la mid ah sida magaalooyinka kale ee Jowhar iyo Kismaayo. Lama oga sida ay ku suurtageli doonto heshiiskan oo uu ku fulo dhinaca beesha caalamka iyo sidoo kale dhinaca ra'iisul wasaare Roble maadaama uu dhaawacayo heshiiskii 17 Sebtembar ee doorashooyinka Soomaaliya. guud ahaanba intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkeenii ku mahadsan idin la socodkeena.